gudoomiyaha gobolka Togdheer ayaa shahaadooyin gudoonsiyay saraakiisha ciidamada booliska ee gobolka Togdheer iyo taliyayaasha saldhigyada Burco. shahaadooyinkan ayaa waxa soo qabanqaabiyay Tababare Cabdi Wali iyo ururka Nooleeyo oo kamid ah ururada arrimaha bulshada sida weyn uga qayb qaata. waxaana ujeedooyinka laga lahaa ahaayeen mahadnaq iyo dhiirigelinta ciidamada booliska ugu jiraan Burco. Nimco Cabdi Abukar ku hadlaysay afka ururka Nooleeyo iyo Tababare Cabdi Wali Maxamed Cilmi ayaa ka warbixiyay ujeedada munaasabaddan. si awgeed waxa dhala muuqatay Cabdi Wali ahaan in aanu iskarab taagno sina sharafiya oo qalmaan marka inay iduna naga garab siisaan wixii urur ahaan iyo tababar ahaan baanu ka qaban karno dadka inaanu insha Allah bidmada kaliya kala talino noloshooda oo aanu maxay toysino marka aad iyo aad baan mahadcelinaya intan waa maxay toyeen sharafiya mid ka weyn mashruuc ka weyn oo kala soo wadnaa gobolka dhalinyaro fara badan bay isu taagay dhalinyaradaas waxay ku hawlan yihiin in ay gobolka ka hirgeliyaan arrimo qiimo badan oo iska wax qabsaa awadayana aan soo jeedaan habeen oo maalin aadan u hooyanin mararka qaar xaafadihiina iyo caruurihiina iyadoo wax kasta gobolka Togdheer ka jiraan una kacdeen bulshada gobolka Togdheer aanu idin xusno idin nahno markaliya way mahadsantiin. maayir ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xoday iyo taliyaha ciidamada booliska ee Togdheer ayaa dhankooda uga mahadnaqay ururka Nooleeyo shahaadooyinkan ay u gurteen inay gudoonsiyaan ama ku maamuusaan ciidamada booliska Burco. waxaan aad u mahadinayaa sida qiimaha leh ay u karteen inay maanta oo kale oo ku beegan munaasabadda ciidanka booliska in ay halkan ku gudoonsiyaan saraakiisha ciidanka booliska shahaado sharafyo ay ku dhiirigelinayaan. waxaan si gaar ah u hambalyeeynaa ciidanka booliska ee gobolka Togdheer oo runtii aan oran karno waa boolis runtii marka goboladu isu faanayaan runtii meelaha aan kaga duwanahay gobolada kale. maamulaha dugsiga hoose dhexe sare ee Sheekh Ibraahim Burco Cabdiraxmaan Axmed Cawad iyo Khalid Axmed Maxamed ayaa tilmaamay inay ciidamadu yihiin kuwa lagu hurdo ee lagu seexdo. gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa ka waramay kaalinta ciidamadu ay ugu jiraan nabadgelyada waxaana uu bulshada Burco faray inay la shaqeeyaan ciidamada si looga hortago dhalinyarada rabshadaha sameeya ama tuug nadiifka moobilada la carara. waa 25 guuradii ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaa runtii farxad weyn inoo ah in xafladan la soo qabanqaabiyay ururka dhalinyarada Nooleeyo oo ay ugu talagaleen munaasabadda 25 guurada ciidanka booliska awgeed inay gudoonsiyaan taliyayaasha saldhigyada kala duwan ee magaalada Burco shahaadooyin ay ku maamuusayaan waxqabadka iyo hawsha ballaaran ee nabadgelyo ee ay ka hayaan gobolka Togdheer. shahaadooyinkan ay ururka Nooleeyo siiyeen ciidamada booliska ayaa ku soo beegmaya 3 November oo ah maalintii la aasaasay ciidamada booliska ee Somaliland. Absaaq Faarax Cabdilaahi TV-ga qaranka Somaliland Burco.